qaraxan oo inta badan joogtiisa laga maqlay xaafadaha degmooyinka Muqdisho ayaa ahaa mid ismidaamin ah kaasoo loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa xilliga goobtani qaraxa ka dhacay oo ahayd abaara 8 subaxnimo ee saaka ayaa waxa ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac dadka ay waxyeeladu ka soo gaartay qaraxan ayaa isugu jira arday u socotay goobahooda waxbarasho maadaama isgoyskan uu yahay marin muhiim u ah isku socodka gaadiidka iyo dadweynaha isaga kala gooshaya Muqdisho iyo duleedkeeda sidoo kale halkan waxa ku nafwaayay xoogsato saaka u soo baxay sidii ay u maareyn lahaayeen nolosha qoyskooda askartii halkan canshuurta ku qaadaysay ayaa ka mid ah dadka waxyeeladu ka soo gaartay halkan oo ku nafwaayay mas'uuliyiin horkacaya gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Filish ayaa halkan soo gaaray waxayna ka warbixin qasaaraha rasmiga ee ka dhashay halkan dabayaaqada bisha December waxa ka dhacay ex control qarax weyn oo saaran lagu soo raray gaari xamuul ah qaraxaas waday wuxuu isku qarxiyay isgoyska ex control afgooye wuxuuna sababay dhimasho badan iyo dhaawac fara badan dhaawacu waa sagaashameeyo sida hadda ay noo sheegeen goobjoogayaashii tirada dhimashada oo rasmigaana gadaal ayaan ka ogaan doonaa laakiin ma yara dhimashadaas waxay u badnayd arday u socotay dugsiyadaha iyo jaamacadaha number weyn ama tiro badan oo ardayda ahi waxay ahaayeen jaamacadda Banaadir inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun Allah u naxariisto dadkaas ku dhintay halkaas waxay ahaayeen dad aan waxba galabsan shacab rayid ah intooda badan waxaa laayay dadkaas dhagari qabayaasha ku soo duulay dalkeena Soomaaliya ma aha markii ugu horeeyay oo ay qaraxa noocaas oo kale ah ay la beegsadeen dhanka kale mid kamid ah dadkii halkani ku sugnaa xilliga uu qaraxa dhacay ayaa warbaahinta uga warbixiyay qasaaraha indhihiisa ku arkay wuxuu dhimashadu ku sheegay in ka badan 70 ruux dhaawacna inuu intaasi ka badan yahay meeshan wax balaaran baa ka dhacay waxa weeye waa cuqubadaas ayaa dhacday waxaas aad arkaysaan ummadana waxa weeye lisma yaqaan waxa waa meeshan waa dad xitaa wax iska daay ciyaal baa ku dhamaaday nimanka ardada ah jaamiciintan waa ku jira halkaan ku dhamaaday meeshan way ku baaba'een waxaan arkay 12 qof oo bidaysa bal wax kale saas u bidahayay qaar waxay ku dhaceen meeshaas oo aan ka soo gurnay hilbahoodii halkaan waxa ku dhintay madaxdii meeshan xukuntay alyoom iyo ninka la yiraahdo Saylac iyo meeshan ku jiraan hoos hadda ku jiraan waa rag baaba'ay oo booliska gaariga qarxay waan arkay wakaalkaya halka waa laga qaad Turkiga halkaas u galay waa meeshuu galay Turkigu laba nin bay ahaayeen ma sheegi karo waxaas ma yiri ma aan lahayn anoo dhan xitaa waa qarsoomay oo habaaskii iyo dhaska hadda biyo ku soo maartay habaaskii iyo wixii oo dhan baa na qariyay markaan soo nimidna meeshaan ardayda markaan arkay madaxdii markaan arkay aniga waxaan sameeyay miirkii oo dhan baa iga tagay iyo maskaxdii meeshaan cuquba ka dhacday aabo waa kaab wax la yaab laha dhacay waxa weeye dadku 70 kama yara